maanta alfaxmaala dib ugu laabanayna kooway kowaag soo bilaabayna war fiiri October horta xilliga aan gashay wax muhiimad ee leedahay male isbuuca koowaad ee October la soo dhaafayay hadda isbuuca koowaad gashay kan labaad aan gashay kan saddexaad aan gashay ama kan ugu dambeeya aan gashay ama 5 daqiiqo ugu horeysay lottery markuu furmay ama kan wax macna ee leedahay male dadka ha aaminin dadka ka dhaadhicinaya dadka ugu horeeyay galay muhiimadda la siinaa iyo dadka ugu dambeeyay taas ana had ku sheegay ka qarsbax okay ma gashay lottery waa gashay Soomaaliya dad badan ay la socdo oo si sax u galay hal sawir oo sax ah information-kooda waxooda meesha gashtay nabiga lambar yar in siinaa oo xoogaa rajo idin gelinaya fiiri horta annaga dal ahaan Soomaaliya waa ka dambeynay arrimaha lottery-ga mogtahay sanadihii la soo dhaafay waxa dadka kala dafay barnaamijka lottery-ga Afrika waxa u badnaayeen Nigeria oo hadda laga kansalay Ghana oo laga kansalay rabo Ethiopia iyo Kenya iyo dalalkaana iska maamulan jiray lottery-ga aniga waa ka dambeynay aniga hadda soo kacnimo sanadkan iyo sanadkii hore oo maleena in asoo aan waaga galay 2014 loo kasta galay Soomaali lottery ku guuleystay ama barnaamijkan helay waaway hadda laakiin boqolaal ay joogto dalka joogto qaarkood ila socdo muxuu ay qaarkood xitaa YouTube la oo soo dhigo barnaamijyada lottery-gaas okay marka horta Kenya iyo Ethiopia waxa aaminsanahay 100% sanadkan ina annaga ka rajo fiicanay Soomaali ahaan sababta idin sheega Kenya iyo Ethiopia markaas u fiirisid lottery inta sano ay soo galayeen waxa aad ugu badnaay khiyaanada min jireen ereyga loo yaqaan fraud in hal qof oo iska dhiga laba qof oo macnaha isku day sida Soomaaliya hadda qaar ay sameeyaan oo kale Soomaalidiina digniina adin dira dadkiinaan halka sawir laba magac ama laba sawir oo isla adiga ah saddex magac ku kala xareysatay nimayahow dhibka idinka kaliya iskuma soo wadiineen dalka Soomaaliya dhiba u soo wadiin hadhow lottery-gan waxa la yiri meel ka akhrinayo waxa la hay wuu recognize uu fahmaya dadka ama dalalka khiyaanada inta badan ay ka socoto marka maanta hadda aniga meel fiican aan fadhinaa waa ka rajo fiican Ethiopia Kenya marka loo fiiriyo xagga lottery-ga saas ay tahay bishan hadda soo socotay ee May haduu alla idmo oo 4 bil kaliya ka dhiman tahay xariifku Hargeyso Sheekh Bagees iska gacabayo selector dhihi doona ko meel kale iska joogo Muqdisho ka joogo busy iska cunaayeen not selector dhihi doona waxaan waa nasiib dadkiina ila socdo labadaas midkood hadda koor idin sheeg waxa dhahay ereyga not selected ilaahay noo misaal horta iska ilaali hadii kugu dhacdase guriga iska galaabo bunkaadi iyo qaxwadaadi iyo geedkaadi noloshaada caadi iska sii wado laakiin hadii selector lagu soo qoro niyahow waa in ama gabar yahay waa in barnaamijka meesha ka sii wadno waaye gaar ahaan dadka selector-ka noqon doono in Telegram ha noqoto WhatsApp ha noqoto in la isku haysto maxaa yeelay arrimo far badan jiro oo meeshaas macnaha ka sii qabadkeeda form ku xareysan lahayd iyo waxyaabo soo kale diyaar idin ahay inaa idin ku caawiyo haduu Ilaahay yiraahdo waa markii selector aan noqotaan laakiin waxa rabay inaan idin sheego dal walba wuxuu leeyahay 7% oo macnaheedu ay tahay dal walba waxa la siin karaa kaliya 3500 oo visa ah macnaheedu waxa waaye DV 2024 Soomaaliya waxay xaq u leedahay 3500 oo visa ah in loo soo saaro waa hadii sax ah u gashay oo selector ah tahay ila idinku dhaariyay intiina la socoto horta ma aqaan tirada saxda ah inta lottery gashay dadka ii soo raacay miski caday iyo dadka kale waa kala garan lahayn laakiin reer lottery 3500 da ka mid noqon weysid sanadka dambe insha Allah bal sugeena laakiin fiiri kaba soo qaad hadda Soomaaliya lambar saxda ma aha ilaa kaba soo qaad Soomaaliya 70000 oo qof ka gashay 70000 oo qof lottery-gan sidiisa waxa selector lahaa 110,000 oo qof Soomaali okay 70000 qof ee Soomaalida gashay qaar inta loo tuuraba laakiin dadka selector-ka ah iyo dadka galay kulay waxa yaraan doono dadka selector-ka ah horta taas waa isla soconaa sababtoo waxa wax baqtiyo nasiib loo dhahay ayaa jiro Soomaali okay dadka sawirada qaldan galay oo ama laba halkii magac ama halkii qof laba magac ku galay waxyaalahaas dadkaas oo dhameesha laga saari doona marka waxa fursad fiican oo soo bixi doonta ani isleeyahay dadka sida saxda u galay oo Soomaaliya ka socdo maadaama Soomaaliya iyo dalalka kale isku mid aysan ahayn anaga 7% xaq u leenahay macnaheedu waxa waaye waa qasab in dad laga soo doorto Soomaaliya sanadkan soo socda qasab waaye weligeed ma dhicin dunida lottery dal zero laga soo dooranayo taas mislifan marka selected kaas dadka selected ah kulay cashiga maanta intaas ku saabsan yahay waxa kale rabaa inaan idin sheego dadka u maleeyo in lottery uu yahay arinta ugu badan ee dalka Mareykanka lagu soo galo taas ma ahan run
dalkan waxaa lagu soo galaa inta badan waa number 1 waa family sponsorship qof inta ku joogo oo ku dhahayo waa xaaskeyga ama odageyga ama cunugeyga waxyaabahaas oo kale lagu soo galaa laakiin loteriga wuxuu ka mid yahay wadooyinka ugu sahlan dalka lagu soo galo waa inoo hadduu ilaahay rado bishan May ee soo socoto maanta cashirkii sheekadii aan kasii waday interviewga wixii macnaha ma jiro laakiin bari ilaahay gaarsiiyo intaas inaad la qaybsado asxaabay hadduu ilaahay rado marka barnaamijyaasha kasii wadayna